qalinjabiyaasha halkan isugu yimid kuwa federal booliska iyo kuwa booliska deegaankaba marka ugu horeysa dhamaantiin waxaan leeyahay hambalyo bagaad ku soo gaadheen maalinkan maanta dadaal dheer oo aad muujiseen iyo dhowr adeeg aad muujiseen maanta qalinjabintan ka dhacaysa jigjiga xarunta booliska tababarka jigjiga ugu soo gabagabeeyey waxay kaga duwan tahay kuwii hore inay tahay tii ugu horeysay si isku dhafa tababar isku nooca ay u qaateen federal booliska iyo booliska deegaanka taas oo runtii kor u qaadaysa tayada ciidanka booliska deegaanka maadaama casharada ay qaadanayaan iyo tababarka ay qaadanayaan iyo waqtiga ay qaateen oo ka dheeraa kuwii hore ay qaadan jireen waa tiradii ugu badnayd ee tababarata deegaanka ciidankiisa waana kuwii ugu waqtiga dheeraa waxaan aaminsanahay inay noqon doonaan kuwii ugu tayada badnaa maadaama ay qaateen tababar dheer oo ka dheer kuwii hore inkastoo oo kuwii hore ay tababartayna hawlaha ay hayaan ay ka muuqato inay tayo badan leeyihiin haddana kuwan inay sii xoojin doonaan waana markii ugu horreysay dadka tababartay ee deegaanka gaar ahaan booliska ah tababarka cidda qaadatay ay ku jiraan dhalinyaro ka soo baxday jaamacado oo aan rajaynayno inay noqon doonaan hoggaaminta mustaqbalka ee booliska iyo ciidamadaba iyaga oo caawin doona kuwa maanta hoggaaminaya tababarayaasha waxaan dhammaantood uga dardaarmayaa inay waxinaya waajibaadkooda si hufan uga soo baxaan sidaad la socotaan dalka Itoobiya dagaaladii ka socday 4 sano u dambeysay waxay u muuqdaan kuwo gabagaboobay iyadoo heshiis nabadeed la qaatay taas oo wax weyn ka tari doonta horumarka iyo deganaanshaha dalka kaalinta ugu weyn horumarkuna waa nabadana waxay gacanta ugu jirtaa hay'adaha amniga marka hay'adaha amnigu kuwa federaalka iyo kuwa deegaankuba inay si wada jir u shaqeeyaan iyadoo deegaan ahaan hadda ahmiyadda weyn ay saaran tahay la dagaalanka kooxda argagixisada ee al-shabaab la dagaalanka isku dhacyada qabaa'ilka ee gudaha ka jira iyo meelmarinta go'aamadii horay loo qaatay si loo xalliyo khilaafaadkaas la dagaalanka kontrabaanka sharci darrada ee dhaqaalaha waddanka dhibaatada weyn ku haya in iyadoo kuwa xoogga la saarayo federal booliska iyo booliska deegaanku labaduba ay u diyaargaroobaan ee kaalintooda haddaba ay ka ciyaarayeen si laba jibaaraan amniga guud ee deegaankana ay sugaan deegaanka Soomaalida dadka ku nool maanta way ka wanaagsan yihiin 30 sano ka hor say u noolaayeen way ka aqoon badan yihiin way ka dhaqaale fiican yihiin way ka dhisan yihiin nadaamahan waxaa taas lagu gaadhay sabriga dulqaad iyadoo weliba 30 sanadood intiisa badan colaad iyo dhibaato iyo cadaadis dad ku jireen waxaan aaminsanahay 10 sano oo dambe haddii amniga deegaanku uu sii waaro in sidaa iyo si ka wanaagsan uga muuqan doono dhaqaalaha iyo aqoonta iyo wejiga shacabka iyo nolosha deegaankaba inay saas ka fiican noqon doonto ugu dambayn mar kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiintii macadka ugu horeeyo maareeyaha macadka maxamed xasan ku-xigeenadiisa iyo hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka taliyayaasha ciidanka booliska iyo booliska gaarka labadaba oo runtii si weyn isugu dabarjebiyey in tababarkan uu noqdo mid lagu guulaysto waxaa kaloo u mahadnaqayaa tababarayaashii iyo mas-uuliyiintii reer federaal ee iyaguna sida wanaagsan uga qayb qaatay tababarkii socday waxaan dhammaantiin u rajaynayaa maalin farxad leh hambalyo noqda kuwii shacabkooda iyo dadkooda iyo diintooda u adeega ku xirnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha